xarunta ciidamada Puntland kormeerayaal iyo waajibaadka hay runtii waa maalin aad u weyn waa maalin ku suntan taariikhda Puntland waa koodii January 2020 oo aan rajaynayno Puntland inay ku gaarto sanadkiisa kale nabad barwaaqo deganaan horumar iyo in dawladnimadu hay'adaheedu ay tayeyntoodu ay taam noqoto haddii Ilaahay ka dhigo waxaan runtii marka ugu horeysa halka anoo ka faa'iideysanaya fursadan inkastoo horay ay dawladdu si rasmi ah tacsiin u dirtay waxaan halka ugu tacsiyeenayaa
qaraxii maalin dhaweyd ka dhacay 28kii bishii sanadkii tagay magaalada Muqdisho ex control oo runtii dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo barmigeeda ah oo arday iyo dad shaqo u socda iyo dad waayeel ah iyo dad carruur ah iyo dad degan oo nabad ku waabariistay lala beegsaday qarax sababay boqolaal qof wax dhintay iyo wax dhaawac waxaa nasiib darro ah qof Soomaaliyeed inuu la soo taagan yahay waxaan dilnay oo baabi'inay dad Soomaaliyeed oo barmagada ah oo aan waxba galabsan waxay u baahan tahay dadka noocaas weeye dadka noo hor jooga waa masiibo iyo aafo ummadda Soomaaliyeed gaarna u ah guud ahaan adduunka maalmahan ka jirta dad doonayo inay magacii ummaddan sharafta u ahayd ee diinta ahaa inay intay ku soo gambadaan ummaddii ku baabi'iyaan iyadoonan xaq aynan u lahayn waxaan rabaa eheladii marka laga soo tago ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda Soomaaliyeed waxaan rabaa eheladii gaarka dadkaas wuxuu yeeloobay inaan halka tacsi u diro intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacan Ilaahay waxaan uga baryayaa in uu caafimaad degdeg ah u siiyo inta markaan uga baxo tacsidaas runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxihii kala duwanaa ee halka ku cabiray fanka oo ugu horeysay kooxda oo isku duuban halka ka soo jeedisay kooxda Horseed oo aan jeclaan lahaa kooxda Darwiish in loo baxsho oo halka ka soo jeedisay hees aad u qiimo badan oo tilmaamaysa hadafkii dawladda iyo hanaanka ay dawladdan u socoto waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Abubakar oo halka isaga ruuxdiisa hees qiimo weyn oo runtii aad u qiiro badan u soo jeediyay dhammaan ciidanka iyo annagaba waxaan si gaar ah isaguna ugu mahadnaqayaa ninkii dhalinyarada ahaa aan filayo magaciisa majaamac buu ahaa gabayagi yarkii muxuu ahaa gabayagi jaamac miyuu ahaa cabdirasaaq oo runtii muujiyey hibo waa la oran karaa dad badan oo gabiya waan arkay laakiin gabayga siduu u cabirayo xaaladda dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin iyo meesha ay rabto in la gaaro iyo sida sahlan ay u cabiray oo xataa dharka aan sidano inaan dadaan hibo lagu siinay iyagu ay gaareen annaguna aan u taagannahay inaan isdilno inaan isdhacno inaan ummadda burburino adduunkan ummadda Ilaahay wuxuu u keenay inay tacmiir ku sameeyaan inay adduunka camiraan horumariyaan dhisaan ummaduhu taas ayay ku tartamayaan dadka Soomaaliyeed nasiib barrada iyo hoggaanimada ku dhacda waxaad moodaa in ay u soo jeesteen inay wixii yaraayo la amaamuday muddadii yarayd oo dadku dawladda ahaa in la rabo in la burburiyo waxaan rajaynayaa dawladda Puntland siday marar badan hormuud ugu ahaan jirtay dalka Soomaaliya inay mar labaad ay hormuud ugu noqoto kacdoon dawladnimo oo ku salaysan hab dawladnimo oo saldhigeedu yahay ammaan la isku halayn karo nidaam maaliyadeed iyo dhaqaale oo sugan adeeg bulsho oo dhinacyadeeda kala duwan kala dambeyn iyo midnimo lagu tiigsanayo in horumarka ballaaran ee ummadaha kala gaartay sidaan u tiigsan lahay wixii aan haysano inaan tayeysano waxa naga maqan aan tiigsano hadba tallaabada iyo tabarta heerkiina gaarsiiso laakiin waxaan rabnaa inaan dib u amaamudno oo dib u yagleelno hadafka dawladnimo ee Puntland leedahay Puntland laba hadaf oo waaweyn bay lahaan jirtay oo midnimada iyo federaalka waa laba waaweyn laakiin hadafka hadda aan rabno waxa weeye labadaas oo meeshooda taagan in la tayeeyo dawladnimadu oo ugu horeysa kala dambeynta oo ay ku xigto qof walba waxa uu sheeqanayo inuu yahay ciidan markuu yahay inuu ciidan tababarkii tayadii la rabay leh dawladduna ay u diyaariso wax walba uu qofkaas ku noqon lahaa ciidan runtii dhalinyaradan maanta horteena ka muuqata waxaan uga mahadcelinayaa saraakiishii ka soo shaqaysay oo aad moodid in ay wixii loo baahnaa ay samaysay marka ugu horeysa sida ay usoo salagta gareeyeen dhalinyaro u qaaboon ciidan qaatay tababar na tusay wixii la tababaray inay kasoo jabo keeneen
annagoo og duruufta lagu sameeyey. waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan intay jirtay ama dowladdan waa dufcadii saddexaad oo dugsigan lagu tababaro. 3 dufco oo ciidamada qaybta gobolka bari iyo nugaal iyo mudug ayaa waxaa lagu kala tababaray dugsiga tababarka Carmo iyo Abqaale. waxaa hadda tababar ku jira ilaa 600 gaaraya dugsiga Xorgoble ee Qardho. waxaa hadda diyaarsan ciidamo kale oo la rabo in la tababaro. intaasoo dhan dowladda Puntland waxa ay qabatay iyadoo 1 shilin oo taageero dibadeeda aan lagu siin. waxay barbar waday inay ciidankii mushaharkoodina joogto u siiso. runtii waa wax markaan bilaabaynay xataa annagu dhiiranaan u baynaga ahayd inay sidaa u fuli karta aanan malaynayn. inaan joogtayno ciidamada hadda jira oo tayadooda aan sulugsannahay oo tiradooda aan sulugsannahay oo wax badan oo isdhexoodan ay ku jiraan ayaa waxaan goosannay waxa ay yihiin inaan ku siino. laakiin waxaan haddana daba wadnay inaan gunta wax ka soo askunno oo tababarada hoos ka soo dhisno oo ciidanka la kala hufo oo la gaaro in ciidan la isku halayn karo oo la yaqaan la helo. waxaa markii ugu horreysay dowladda Puntland si rasmi ah ugu dhawaaqday oo ku guuleysatay tirada shaqaalaha ee dowladda Puntland oo qof walba musawir iyo cod maxaa la yiraahdaa iyo far iyo muuqaal laga qaaday oo la yaqaan oo mushaharooyinkiisii loogu shubayo account uu isagu leeyahay. waxaa markaan hadda intii sanadka dhammaan bishii la soo dhaafay gabagaboobay ciidanka madaxtooyada inay kulligood iyagana biometric la mariyay mushaharooyinkoodana bishii December ay ugu dhacday accountadooda. waa 2 tallaabo. waxaan rajaynayaa sanadkan ciidamada inta kaleeto oo ka harsan inay kulligood sidaa noqdaan. labadaas haddaan ku guulaysano dalku wuxuu gelayaa hinqasho iyo hiigsi aan rajaynayno meesha uu socdo inuu gaaro. cidda la rabo in lagu gaaro haani gunbay ka tolataa ciidanka ayaa saldhig u ah. haddaan nabad la helin horumar lama helayo. hadafkeena koowaad marxaladda koowaad waxa weeye dhisidda iyo tayeynta ciidanka. waxaan halka rabaa inaan u diro dhammaan ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan, kuwa difaaca ku jira iyo kuwa xeryaha ku jira iyo kuwa shaqooyinka tooska ku jira. waxaan kulligood u dirayaa hambalyo dadaalka ay qabteen, dalka siday u difaaceen, siday u ilaalinayaan duruufaha adag ugu shaqaynayaan. waxaan u ballan qaadaynaa duruufta adkeed ay ku shaqayn jireen inaan duruuf ka fiican gaarsiino. waxaan iyagana ka codsanaynaa askarta iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo hoggaanadooda iyo saraakiishayaashoodaba inay nagala shaqeeyaan kuwa ku dhex dhuumanaya inaysan ogolaan. waxaa nasiib darro ah in dad sidaa u soo taagan oo habeen iyo maalin xabadda ku jira oo dhufayska ku jira, kuwa dibadaha jira sida aan warka ku hayno, kuwa aan magaalada iska laafiyoonayo, kuwa gidaarada isaga qaylaya inay la xuquuq noqdaan. wax la aqbali kara maaha runtii. laakiin in la aqbalo idinkaas sabab ah markaa hoosta ku qarsateen. waxaa qarsatid way ku qarsadaan baa lii. waxaan halka uga dirayaa saraakiisha dowladdu inay ku dhiiradaan in laga suuliyo ciidanka Puntland waxa loogu yara caagla waa inay ka baxdaa meesha. waa inaan helnaa ciidan aan naqaan tiradiisa. waxaan diyaar u nahay dowladda Puntland iyagana inay xuquuqda ay leeyihiin si joogto ah u siiso, korna u qaado midda ay maanta haystaan mid ka fiican iyadoo og tabarta dalkooda u leeyahay. dowladda Puntland waxa ay hayso waa wixiinni shacabkiinni canshuurtii ay ka qaaday, idinkii shacabka u shaqaynaya inay nagu celin. waa intaas waxa ay aan maamuleen. wax anagu aan leenahay oo aan siinayna maaha, wax cid kale leedahay maaha, waa xuquuqdiinni. laakiin waxaan rajaynaynaa xuquuqdiinnii dadka ku ciyaaraya inaan ka qabanno. intaas waa hadafka aan rabno inaan xaqiijino. waxaan rabnaa inay ciidamadu noqdaan kuwa ugu horeeya ee dowladdan hadafka ay leedahay gacan ku siiya oo garab ku siiya, oo kuwa diidan oo isugu jira kuwa nabadda diidan, kuwa kala dambeynta diidan, kuwa dowladnimada diidan, kuwa raba marka wax la saxo inay jidka goostaan oo dhahaya waxa aan sidaan wax u rabna haddaan noola yeelin waxba socon maayo. waxaasoo dhan waxaan rabaa kuwa gacanta ka qaban doona inaa idinka noqotaan. waxaa annaga ballan naga ah inaan dalkan madax furasho loo haysan doonin mar dambe. haddaa idinka nagu garab istaagtaan, mid meel istaagay iyo mid ismadoobeeyey iyo mid reero soo kaxaystay
intaba kama aqbalayno horumarka dalkan oo waajib nagu ah inaan ka shaqeyno inaan uga baqno waxaan idin rajaynayaa waxa dadka kala hagaya waa nidaamka waa sharciga waa dastuurka waa waxa la rabo in la tiigsado arrintaas waxaan rajaynayaa in dadka reer puntland dhammaantood ay ka wada shaqeeyaan ciidan iyo shaqaale iyo shacab iyo madax qeybihiisa kala duwan waxaan rajaynayaa hadafka aan leenahay inaan xaqiijin karno dalka soomaaliyana aan u noqon karno samata bixiyaal 30 sano waxaa la yidhaahdaa dowladnimo kama hana qaadin soomaaliya hadday puntland intii ay samaysatay oo maamul iyo kala dambeyn ah waa looga dayday oo maanta waad ogtihiin dalkii tabartiisu wax kasta ha lahaatee waxaa ka jira maamula laakiin cadow badan uu wada haysto waxyaabaha ay ugu guulaysan waayeen waxaa iyadana rabnaa inaan tusaale ugu noqono in maamulku waxa loo dhiibay uu ka soo baxo dadka soomaaliya maanta ciidan la-aan ma hayso waad ogtihiin ciidanka soomaaliya meel kasta ay joogaan puntland keliya ayaa wax 10 kun oo ciidan ku dhow jooga 20 kun oo amisona dalka jooga tira aan la qiyaasi karin waxaan u maraynaa ciidamada soomaaliya maanta ka howlgala marka la isku daro 100 kun kor bay u dhaafay 5 kun oo wiil oo afka duuftay baa maara loo leeyahay ama 3 kun oo wiil oo ceeb soomaaliya dowladnimadeedana ceeb ku ah ciidanka soomaaliyeedna ceeb ku ah waxaan rabnaa in muddo yar oo kooban puntland ay sambal u noqoto ama u noqoto wax lagu dayo oo la cirib tiro dhammaan cid sheeganaysa in ay tahay urur noocu doona ahaaday puntland ma ogolaan doono ciidan aan ciidanka puntland ahayn magacuu rab ha sheegto mid qabiil ma ogolin mid argagixisa ma ogolin mid magacyo kale la baxa midna ma ogolin ciidanku waa ciidanka puntland saasaa dastuurku nafaraya saasaa dowladnimada nafaraysaa cid kasta oo ciidan kaleeto meel ku sheegta ha ogaato ciidamada puntland ogolaan maayaan shaqaynka qabanaya ninkii raba inuu ciidanka puntland noqdo isagoo magac kale simaano ciidanka puntland ka mid noqda xuquuqda uu leeyahay waajib bay nagu tahay in annagana gudano waxaan rajaynayaa dhallinyaradan dardaaranka macallimiintiina ini siiyey oo runtii inay hagar baxay ayaa dardaaran inagu filan inta ay ka sheegeen casharadoo halka qaadateen oo isugu jirta disciplinka iyo wadaniyadda iyo tacticada dagaal intaas oo aad ka dhigataan hubka ugu horeeya oo aada leedihiin dowladda puntlandna agabka kaleeto oo ciidan inay dhammaystirto ayay diyaar u tahay waxaan rajaynayaa dardaaranadan la siiyey oo dhan inaad weelaysaan inaad suuradda dalka wax ka bedeshaan inaad u diyaar garowdaan ciidan la ysku halayn karo kala dambeyn leh dowladnimada ilaaliya inaad noqotaan idinkana aad sharaf ku noolaataan waxaad ogtihiin ciidamadii inaga horreeyey markay waajibkooda gudan waayeen dayac fara badan baa haleelay aad baan uga xumahay dayaca ciidanka ku dhacay laakiin qeyb badan oo ka mida iyagaa sabab u ah maxaa yeelay iyagaa marar badan ogoleyn nidaamka iyagaa marar badan ogoleyn in la soco iyagaa ishuwan u isqarsaday iyagaa maaragtay wax aan munaasab u ahayn ciidan waxay lagu yaqaanay oo kooxo iyo reer isu kala qeybiyey marka eedda qeyb bay ka yihiin duruufta adagay soo wajahday waxaan rajaynaynaa puntland inay ku filan tahay ciidanka ku filan oo haddii si saxa loo helo inay puntland miisaaniyadda hadda haysato ay ku filan tahay adduunka iyo cidda soomaaliya taageertana iyadoo ay arkayaan iyagoo waxba ku taageereen inay intaa qabsadeen waxaan rajaynayaa iyagana dadka saaxiibada laha soomaaliya inay garowsan doonaan oo ciidamada puntland ay gacan dhab sii doonaan waa ciidanka sida dhabta ah ula dagaala argagixisada burcadbadeeda burcaddiimeedka iyo dadka isku daya inay nidaamka dowladeed ay ka hor yimaadaan intaba ciidamadan daqiiqadda waxaas dhacaan ayay ka howlgalaan iyagoo oonan madaxda sare ee siyaasadda amrin ayay go-aano qaataan oo fuliyaan runtii waa geesiyaal la isku halayn karo in lagu hurdi karana waxaa muujisa 21 sano oo dowladnimo oo puntland ay ku naabatay waxaa sababay oo hiilgeliyey oo sugay waa ciidankeeda ciidamadeedana hadda waxaan ka rajaynaynaa inta ka dhiman inay sidaas ku dhammaystaan insha allahu tacaala waad mahadsantihiin
intaasaan kusoo gabagabeynaya.